يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. داوديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيد اللهانتين برمضان كريم، رمضان مبارك. داوديال وبرنامج كيني ويدا علمده وحانا عاوة مرتنا هو فضيلة الشيخ مصطفى آدم محمد وكمدها علمada iyo mashaayikhda gobolka Togdheer gaar ahaana macallimiintii waqtiga badan soo geliyay faafinta barashada Quraanka Kariimka waqti badanna u soo huray ugu horeyn sheekhay gulo soo dhaweeyay barnaamijka sheekhana ku soo dhaw barnaamijka wada culimada jazakallahu khairan. Daawadayaal ugu horeyn su'aasheena ku waxay tahay bal qiimaha iyo fadliga uu leeyahay Quraanka Kariimka aynu sheekhu hayn la wadaago. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan dadka ina daawanaya meel kasta joogaan. waxaan ka barayaa Ilaahay Ramadaanka tabaaraka wa tacaala inuu ka dhigo Ramadaan mubaarak ah. soomka iyo salaada iyo cibaadaadka inuu sameeyna qaar maqbuula Ilaahay ka dhigo tabaaraka wa tacaala. mar labaad waxaan salaamayaa Sheekh Abdullah Maxamed Yuusuf Shaabudiin oo runtii barnaamij kale oo naafic ah oo bulshada wax badan taray hawsha u badan ka geystay Allah barakeeyo. waxaan kaloo u mahad celinayaa cid kasta oo barnaamijkan sabab u ahayd inuu bulshada gaadho, fikir ha ku darsato, maal ha ku darsato, maskax ha ku darsato. waxaan yana ilaaweynin inamada iyaguna faniinta ee baahinaya barnaamijka iyo dhammaan tiifiyada bulshada u baahinaya. Allah idin barakeeyo, Ilaahayna camal maqbuul ha idin ka dhigo. intaa kadib walaalayaal, marka aynu ka hadlayno Quraanka iyo fadligiisa, wataseedaba shay waliba sharafta wuxuu ku yeeshaa ama fadliga uu leeyahay wuxuu ku xiran yahay cidda uu ka soo jeedo. شرف العلم بشرف المعلوم ayaa culimadu yiraahdaan. marka Quraanka waxa ugu filan fadli iyo amaan inuu yahay kalaam rabbil alamin. marka wax kale la sheegin fadligiisa waxa uu ku urursan yahay oo qof kasta oo muslim ah ku filan inuu yahay kalaam rabbil alamin, inuu yahay kitaabkii Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku khatimay dhammaan risaalaad wixii uu anbiyada u soo diray, inuu yahay khayru kitaab unzila ala khayri rasuul Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo lagu soo dejiyay ama loo soo dejiyay khayru ummatin ukhrijat linnaas. fadligiisa oo ijmaaliya intaas inaga filan. wax kamid ah hadaynu sheegno in fadligiisa waxa kamid ah inuu yahay hanuun Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu bashariyada u soo dejiyay, inuu yahay naxariis Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ummadan u soo dejiyay. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إنه يهي روح أي كنا ولانيو إن قلبك يشرك إنتبا أو ضدك الدنيا يدغانكو إنتبا أي كنا ولانيان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سإلهي تبارك وتعالى إنه يهي دو إلهي تبارك وتعالى وأسود دجيي مخلوقات كيسة. وحكم ذا إن فضل كيسة إنه إلهي تبارك وتعالى إن كدغي قفكي أما بلشدي إن لا صاحبته إنه إلهي أبلغ قاضي تبارك وتعالى أدون كان إنان لمن آخرنا إنان يقول دريسنين
waxaa ku sugan warkii dadkii inaga horeeyey iyo warka mustaqbalka iyo dadka soo socda iyo xukunka inaga dhexdeena ciddii qabsata fardi iyo mujtamacii ay tahayba waa hanuuntay waxaan u geysiinayaa as-siraat al-mustaqiim fadliga quraanka waxaa ka mid ah in ilaahay tabaaraka wa tacaala ciddii qabsata adduunka uu ka ilaaliyey inay lunto faman ittabaca hudaaya falaa yadil aakhirana ilaahay uu ka ilaaliyey tabaaraka wa tacaala in uu dhibaato muto walaa yashqaa saa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ah fadligiisa inaanu qofkii la nool qur'aanka aanu kaga hadhaynin adduunka waxaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii qur'aanka barta ee ku camal fala waxa uu amarkiisa raaca nahyigiisa ka reebtoonaada meesha uu u hogaamiyo u hogaansama ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u ballan qaaday min alqabri ila aljanna in aanu marnaba ka hadhin dhowr xadiis oo ku saabsan arrintaa haddaynu xusno waxaa ka mid ah inuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam alqur'aanu qur'aanku waxa weeye waa shaaficun mushafac waa mid ergeynaya ergadiisana la aqbalayo wamaaxilu musadaq waa mid markhaati ah oo qofka markhaati ku ah markhaatigiisana la rumaynayo waxaa nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam man jacalahu amaamahu qaadahu ila اljanna qofkii qur'aanka dabagala ee iska horeysiiya wuxuu ku hagayaa oo u hogaaminaya janno waman jacalahu khalfa dahrihi qaadahu ila الnaar fadliga qur-aanka taasaa ka mid ah waxaa fadligiisa ka mid ah qofku marka uu dhinto ee qabriga la dhigo in cidda ugu soo horeysa ee wehelka u noqonaysa ee u bishaareynaysa ee mugdiga iyo madowga uu ku sugan yahay iyo cidhiidhiga iyo cidladaba wehel uga noqonaysaa inuu qur'aanka yahay waxaa ka mid a fadligiisa marka qabriga alxayaatu albarsakhiya marka ay dhammaato ee qiyaamuhu u bilaabmo cidda ugu horeysa ee qofka soo dhoweynaysa ee qabriga ka gelbinaysa waa qur'aanka waxaa nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam ina alqur'aana yalqىa صaaxibahu yowma alqiyaama xiina yanshaqu canhu qabruh kaarajuli الshaaxib marka sidaa qofka uu qur'aanka qabriga uga soo baxo cidda u horeysa ee uu la kulmayaa waxa weeye qur'aankii isaga oo ah kaarajuli الshaaxib sidii qof markaa ama safar oo kale ka soo galay oo wejigiisu uu yar bedelan yahay xikmadu waxa weeye baa la yidhi si uu u garto inuu xaggii adduunkii oo kale oo markaa ugu soo hiloobo dabeedna wuxuu odhanayaa hal tacrifunii qofku wuxuu ugu jawaabayaa ma acrifuk markaasuu ku odhanaya ana saaxibuk alqur'aan waxaan ahay saaxiibkaagii qur'aanka ahaa marka maxsharka laysugu tago iyo carasaadka qiyaamaha waxaa nebigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam yu'taa yowma alqiyaamati biاlqur'aani wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bih markaana waxaa imaanaya qur'aankii iyo ehelkiisii oo wada socda taqdumuhu suuraة اlbaqarati wa ali cimraan yuxaajaani can saaxibihima iyadoo suuraة اlbaqara iyo suuraة alcimraan ay hogaaminayaan halkaa wan kaga hadhi maaye ilaa uu jannada geliyo sa nebigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam oo qofka la yidhaahdo inta albaabka jannada loo furo iqra warqa waratil kamaa kunta turatiluhu fi اdunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa ilaa uu darajaadka jannada yana geliyo inaanu marnaba ka hadhaynin marka qur-aanka fadligiisa waxaa ka mid ah adduunka waxaa qofka lagu qadimayo ee lagu fadilayo ee lagu horeysiinayo waxa weya waa qur'aan kariimka ah saas awgeed baa salaada markaynu tukanayno
waxaa nebigu yihi calayhi الصalaaةu wasalaam yaumukum aqra'ukum likitaab الlah salaadu waa manaasibta ugu mudan ee diiniga ah qofka ugu mudan ee lagu horeysiinaya waa qofka qur'aanka marka ehelka u ah qabriga hadday tahay waa sheegnay qabriga marka loo socdo hadday tahay waa sheegnay qiyaamaha marka la joogo hadday tahay waa sheegnay ilaa iyo jannada uu geliyo saaxiibkiisa marka fadligiisa intaa iyo in kale oo fara badan oo aynaan sheegin ayaa ka mid ah waxaan isleeyahay intaas insha allahu tacaala waa ku filan tahay jazaaka allahu khayran sheikhana qur-aanka mar haddaynu fadligiisa iyo qiimihiisa u yahay bal adigu waxaad si kooban noga warantaa goortii aad bilowday qur-aanka barashadiisa macalimiintaadii qaar ka mid ah iyo weliba qaabkii ama kayfiyaddii aada u dhigan jirtay waagaa hore qur-aanka waad mahadsantay shaabudiin horta ugu horeyn sidii waagii hore kolleyba dee aanu anagu ardayda ahayn iyo hadda qur-aanka looga dhigan jiray waa kala duwaneyd anigu waxaan dhashay 1970 bisha February maalintii ma haya laakiin kolleyba bishaasi ahayd sala ii sheegay xagga hijriga waxay ku beegan tahay 1389 bishii ugu dambeysay ama 1390 hijriga bishii ugu horeysay ayay ku beegan tahay waxaan ku dhashay eriyada degmada Duruqsi oo ka mid ah gobolka Togdheer gaar ahaan hoos timaada degmada Burco quraanka waxaan bilaabay aniga oo 7 jir ah sanadkii 77kii ama 1970kii dhexdiisii waxaan filayaa bilihii hore inay ahayd ayaan bilaabay waxaana dhameeyey 1978 awalkiisii muddo aan markaa 8 bilood aan ku qiyaasayo ama 8 bilood iyo wax yar ayaan ku dhamaynay dhamayntu kolleyba dee tan hadda waa ka duwaneyd waxaa lagu dhigan jiray qur-aanka annaga waagayagii loox baa lagu dhigan jiray waan xasuustaayo looxii khadka lagu qorayey min alif laga bilaabo higaad oo dhan ilaa iyo suuratu yaasiin looxa ayaanu ku dhiganay suuratu yaasiin ilaa aakhiri qur'aanna musxafka ayaa aanu ka dhiganay taas saasay ahayd macalimiintii qur-aanka aan ka bartay allah barakeeyo horta 3 fatro ama 3 waqtiyo kala duwan baan u qaybin karaa ardaynimadii hore ilaa iyo laga soo gaadho 90kii laga soo bilaabo ilaa iyo 2005 iyo 2005 laga soo bilaabo ilaa hadda aynu joogno 3 fatro ama waqti ayaa masiiradayda markaa ama geedi socodkii xagga qur-aanka ku saabsan aan u qaybin karaa waqtiga hore macalinkaygii iigu horeeyey macalin buu ahaa macalin Suleymaan baa la oran jiray Maxamed Fiin ilaahay u naxariisto tabaaraka wa tacaala waa geeriyooday nasiib wanaag maalin saa u sii fogeyn ayuu ku geeriyooday magaalada Burco Masjid Raxma ayaa janaasadiisa la keenay aniga ku tukaday nasiib wanaag waana soo aasnay alxamdulillah ardaygiisina waa ahaa waxaa noo xigay macalin isaguna markii horena nin macalin oo macalimiintii waaweyned ka mid ahay uu dhalay markii dambana malcaamadayada macalin ka noqday macalin jaamac baa la oran jiray waxaa loo jeeday macalin maxamuud macalin jaamac nolol baan ku ogaa allah barakeeyo isaguna kolley hadda nolol baan ku ogaa aaga harada iyo meelahaas ayuu kolley imaka ugu dambeyntii ku ogaa macalinka saddexaad macalin maxamed la oran jiray buu ahaa allah u naxariisto isaguna waa geeriyooday waqti hore isagoo geeriyooday saddexdaa macalin ayay ahaayeen intaa hore macalimiintii aan qur-aan ka dhigtay laga bilaabo 92kii oo aan bilaabay talabul cilmigan dambe iyo haddii alla ka dhigo dee saxwadan mubaarak ee barakaysan aan la jaan qaaday iyagana macalimiintii qur-aanka aan ka bartay waxaa ka mid ahaa sheekh Kamal Cuthmaan Ducaale oo ilaa hadda jooga allah barakeeyo
macallimiinta runtii iyaguna fadliga igu lahaa waxaa ka mid ah sheekh maxamed jaamic axmed oo isaguna ilaa hadda nool sheekha degmada gaashaamo ah iyo aagga u dhowba waxaa runtii isaguna wax ka mid a qur-aanka mar uu halkan nagu soo booqday aan ka baranay macalinkii weynaa ee macalin mukhtaar la odhan jiray fatrada qorsina reer muqdisho ah fatrada wixii ka dambeeyey qur-aanku waa kordhay ijaazaad baa bilaabmay qiraa'aadkii qur-aanka oo lasii bartay baa bilaabmay fatrada dambena macalimiin runtii aad u badan oo carab iyo soomaaliba leh ayaa ilaahay tabaaraka watacaala nasiib ii siiyey inaan la kulmo hadday xaramka makiga tahay iyo hadday xaramka madaniga tahay iyo haddii ay hargeysa tahay iyo haddii ay markaa meelo kaleba tahay markaa intaasaan kaga baxaya sheekhana intaa markaan ka nimaadno markii kugu horeysay sheekh aad isku daydo ama aad bilowday inaad qur-aanka faafintiisa aad qayb ka qaato aad ardayda usii dhigto goormay sheekh ahayd si xaggee baad ka bilowday markii ugu horeysay ee aan macalinimada qur-aanka bilaabaa waxay ahayd 1992 ayay ahayd adigu haa 30 sano iyo weliba dheeraad marka laga tiriyo xagga hijriga waaba ka badan kartaa meeshii u horeysay ee aan qur-aanka ka bilaabayna inaan macalin noqdo waxay ahayd degmada gaashaamo oo markaa hadda dhulkan la dowlad deegaanka Soomaalida degmo kamid weeye waa macruuf halkaasaan ka bilaabay 1992 ahayd 1992 ilaa yoomina hadana marba inay tahayba kuleyba kamaan ag fogeyn anigoo runtii qiraya waajibkii naga saarnaa qur-aanka inaanan gudanin haddana kuleyba waan ka agdhowaa inahaas wallahu aclam sheekh ma jiraan wax kugu dhiirigeliyey inaad sii wado qur-aanka barashadiisa ama inaad sii dhigto waxyaabo kugu dhiirigelinayo kugu kalifayay waa kuleyba waa jiraan qofka muslimka ah daafica koowaad ee marka hore riixaya waxa weeye qur-aanka iyo fadligiisa marka aad aragto kuleyba inuu qofku fadliga ka qayb galo waa daafica koowaad waxyaabaha runtii igu dhiirigeliyey waxaa ka mid ah fadliga faraha badan ee qur-aanku nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka qur-aanka dadka bara khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah xadiiث cuثmaan bn cafaan fi صaxiixi الbukhaari wagayrih cidda idinku khayr badan waa cidda qur-aanka barata khayryadu markaa ku dhamaystirmi mayso qofku inuu qur-aanka barto laakiin wacallamahu inuu sii gudbiyo marka maadaama uu yahay qofka qur-aanka barayaa ama dadka barayaa khayru umma oo ah ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwii haddana ugu sii khayrka badnaa koley daafica qof kastoo muslima dhaqaajinaya waa ka mid waxyaabaha runtii igu riixay ama igu dhiirigeliyay inaan qur-aanka kusii dhex jiro waxaa ka mid ah baahida aadka iyo aadka u badan ee bulshadeennu ay u qabto qur-aanka iyo barashadiisa waxyaabaha runtii igu dhiirigeliyay waxaa ka mid ah macalimiintii qur-aanka noo dhigi jiray oo iyaga laftoodu in badan nagu boorin jiray si toos iyo si dadbanba in aan qur-aanka sii gudbino faafino iyo markaa waxyaabo kale oo dee laga yaabo inay markaa iska jiri karaan wallahu aclam dad badan baa sheekh markay ku arkaan ama ay ku dhageystaan waxay soo xasuusanayaan ama waxay isweydiinayaan talow sheekh mustafa waa xaafide sidee baad qur-aanka u xifdin kartaa ama habka ugu fudud inagoo soo koobana qur-aan loo xifdin karo habka ugu fudud ee qur-aan loo xifdin karaa horta waxaa kow ka ah dee towfiiq ilaahi tabaaraka watacaala inuu ilaahay qofka waafajiyo waxaa ka mid ah waxyaabaha runtii qofka u fududeyn kara inuu la yimaado casmi iyo go-aan iyo shucuur naftiisa ah oo ku bixiya inuu markaa qur-aanka xifdiyo asbaabta runtii ama waxyaabaha qofka ka caawin kara ama u fududeyn kara inuu qur-aanka xifdiyo waxaa ka mid ah in uu helo
معلم أما معلم متقن أو قرآن كبره وحيابها رنتي قفك أفضل كرا وحيدنا كمده معلمك قرآن كأد كبرنسا إنه يهلفتي سمين ناصح waayo macallim waliba ma waxa laga yaabaa inaanu muhiimadaas ay tahay u gudanin marka inuu doorto macallinka uu isleeyahay waa ka idqaan roon yahay macallinka uu isleeyahay waa ka ikhlaas roon yahay macallinka uu isleeyahay waa ka leex jecelo badan yahay xagga ardayda waxyaabaha quraanka qofka ku caawiyo inuu xifdiyo waxa kamid ah inuu waqti iyo dadaal siiyo waxyaabaha quraanka qofka ku caawinaya waxa kamid ah inuu tarkiis iyo dadaal dheeraad ah ku bixiyo inuu tacaahud iyo ilaalin ku bixiyo ka aanu dhiganin iyo ka uu dhigtay iyo ka uu hadda dhiganayo intuba waxay u baahan yihiin marka dadaal dheeraad ah oo lagu bixiyo mar walbana waxa iyaduna kamid ah inuu qofku helo bi'o iyo deegaan u munaasib marka inuu quraanka xifdiyo waxa soo dhan ama in badan oo kamid ah waxyaabaha qofka u koobaya waxa kamid ah cabsida Ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ku dadaalo wa khayru wasilatin lilhifdhi taqwa ala badir biha rayb almanuni culimadu waxay oran jireen wasaa'ilka qofku uu wax ku xifdiyo u khayrka badan waxa kamid ah taqwa Allah azza wa jalla inahaas waxaan isleeyahay waa inagu filan tahay wallahu a'lam sheekh marka la eego xagga bulshada Soomaaliyeed waaga hore aad ardayga ahayd iyo imako aad macallin tahay iyo may xagga biseelka quraanka barashadiisa ay u fiicnaan ama ay u roonaayeen bismillahir rahmaanir rahiim waxa la oran karaa mar bulshaba ama waqtiba dhinacba ku fiicnaa waa la oran karaa xagga diyaar garowga iyo ardayga la jeclaantiisa iyo kula dadaalkiisa waxaad moodi kartaa ama la oran karaa inay dadkeenu hore ku fiicnaayeen waayo waxaan garanayaa habka waalidku ay macallimiinta ula tacaamuli jireen baan ka garanayaa habka waalidku macallimiinta ay ula tacaamuli jireen waalidka marka ilmihiisa quraanka loogu dhigayo waxay ahaan jirtay kaanama inuu waalidka wax u dhigayo marka macallinku ardaygu macallin u ahaa oo hooyadu macallin u ahaa oo aabaha ayuu macallin u ahaa waalidka yaan quraan ba u dhigine laakiin say u jecel yihiin iyo say ugu soo hiloobayaan iyo say ugu qalbi furan yihiin marka la eego xagga runtii aad bay uga fiicnaayeen xagga tixgelinta macallinka lafteeda waxaad oran kartaa iyadoo runtii aanu marnaba dadku isku mid ahayn oo kala duwanaansho uu iman karo haddana waxaad moodaa bulshadeena hore inay aad iyo aad ugu fiicnayd bulshada runtii imikana waxyaabahay ku fiicantahay waxaa kamid ah xagga macallinka dhaqaalayntiisa oo kale waxaa laga yaabaa in iyagu ku fiicnaadaan oo wasaa'ishii hore iyo wasaa'isha hadda way kala duwan yihiin macallinka taakulayntiisa oo kale waa laga yaabaa inay halkan hadda ku fiicnaato marka dhinacba ama bulshaba waxbaa laga yaabaa inay ku wacnaato jazakallahu khayran sheekh su'aasha ugu dambaysa gunaanad iyo talooyin aan ku soo xidhno barnaamijka horta talooyinka waxaa kow ka ah tii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inagula dardaarmay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah inaynu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsano mar wal iyo meel walba waxyaabaha runtii talooyinka ah lagu dari karo intii hore waxaa ka mid ah in ardaydu ay aad iyo aad ugu dadaalaan quraanka in ay xifdiyaan marka xifdiyaan kadibna ay marka ku dhaqmaan oo amal falka quraanka ay aad iyo aad marka loogu dadaalo hadda xifdigu waa badan yahay
dad badan runtii waliba itqaankoodu uu fiican yahay aad iyo aad bay u badan yihiin laakiin jaanibka aad moodo inuu xoogaa inaga dhiman yahay waxaa ka mid ah jaanibkii ku camalfalka qur'aanka fadligaa faraha badan ee qur'aanka loo sheegay ama ahalkiisa loo sheegayna wuxuunbaa gaadhaya oo helaya qofkii isku dara cilmiga qur'aanka iyo camalkiisa marka in aad iyo aad iyo aad arintaa loo cinaayayo waa dardaaran aan kol jecelahay runtii inaan xuso waxyaabaha runtii aan jecelahay inaan xuso siiba bulshada in la ogaado qur'aanku qofka xataa culumta kale ee dunyawiga ah wuxuu u kordhiye mooyaane wuxuu seejinaya in aana jirin marka lagu dadaalo in waxa koowaad ee ardayga qalbigiisa lagu kornaya uu noqdo qur'aan kariimka ah waxa markhaatimo doona qofku hadduu majaalka qur'aanka ku fiicnaado majaalada kale ee noloshana inuu noqonayo hormuud marka in arrintaa aad iyo aad loogu dadaalo talooyinka aan bixinayo ayay ka mid tahay in dhammaanba ka bulsho ahaan hadday arday tahay hadday macalimiin tahay hadday waalid tahay hadday xukuumad tahay hadday shacab tahayba kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo kor u qaadistiisa inaynu isu kaashanno hadday xukun tahay iyo hadday ku dhaqan tahay iyo hadday barasho tahay oo inta maanta aynu u jirno aynu uga dhowaano wallahu aclam daawadayaal intaas waxaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni weedha culimada oo caawa martinagu ahaa fadiilata sheekh mustafa aadam maxamed waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام جزاك الله شيخ. جزاك الله خير